الرحيم magacaygu maxaa Cabdikariin Maxamed waxaan ahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ardayda jaamacadda City Court waxaan warbixin yar oo kooban ka bixinayaa shaqooyinka guddigu soo qabtay shaqooyinka u yaala iyo doorashada meesha ay marayso marka koowaad guddigu waxa la magacaabay bisha 3aad kowdeedii 2024 inta kadib guddigu wuxuu iska dhex doortay gudoomiye ku-xigeen afhayeen iyo xoghaye inta kadib waxaan sameynay oo dejinay qorshe hawleedka guddigu ku shaqeyn lahaa ilaa laga dooranayo gudoomiyaha ardayda jaamacadda City Court sidoo kale waxaan dejinay habraacyada doorashada oo dhan sida habraaca xildhibaanada iyo shuruudaha musharaxa markaan inta qabanay waxa aan diwaan gelinay ururadii waxa aan u qabanay doorasho waxaan soo kala reebnay ururadii ururnimo ka soo gudbay saddexda xisbi oo kala ah Haniyo Himilo tala wadaag hiigsi hogaami waxayna hadda foodo nagu soo haysa doorashada gudoomiyaha guud ee ardayda jaamacadda City Court oo dhici doonta 18 bisha Afraad 2024 waxaana ka dhici doontaa qaybta jaamacaddu ku leedahay Baalada waxay fursad ah u haystaan oo ay ku dooran karaan hogaamiye oo ka baxa sidoo kale waxaan maanta booqasho ku tagnay indhaynday qaybta cusub ee jaamacadda ay ka dhisatay Baalada oo ay ka dhici doonto doorashadu waxaan isla soo qorsheynay qaabka doorashadu dhici doonto iyo meesha ka dhici doonto doorashada waxa ka dhici doonta barxadda jaamacadda waxaan doorashadu dhici doontaa gelin dambe hadii ilaahay idmo waxaan dhici doontaa waqtiga ay soo sheegay oo ah 18 bisha Afraad 2024 oo ku beegan maalin Khamiis ah